بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، marka hore waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo inay jirto maalin lagu maamuusayo ama lagu barordiiqayo odayaashii nabadoonnada ahaa oo sida waxxushnimada ahayd loogu xasuuqay deegaanka Jameeco oo u dhow degmada Buurhakaba ee gobolka Baay. taariikhdu marka ay ahayd 23 bisha hadda aan ku jirno ee Maarso. dhacdadaas waxay dhacday xanuun badan oo Soomaaliya oo dhan ay dareentay meel walba ay ka joogaan adduunka dacaladiisa. si aad ka warqabtaan, jaaliyado badan ayaa ka hadlay, jaaliyado badan ayaa tacsiyeeyay ay ku jirto jaaliyada gobolka Minnesota. balse waxaan rabnaa arrintu inaysan intaa ku ekaan oo aan tacsida ballaarino oo aan barordiiq samayno. sidaa darteed waxaan qabanay maalin weyn oo Soomaalida oo dhan ay ka soo qayb galayso oo odayaashaas lagu maamuusayo, laguna muujinayo qashuuc iyo dhibkaas inuu ahaa dhib Soomaaliya oo dhan wada gaaray meel walba ay adduunka ka joogto. dhibka gaaray odayaasha gobolka Shabeellada Hoose ama shacabweynahaas meel walba waa uu gaari karaa, deegaan walba ama degmo walba, tuulo walba, maamulada jiro iyo Soomaaliya daafaheeda oo dhan. marka si dhibkaas uusan u dhicin mar kale, waxaan rabnaa inuu Soomaaliya oo dhan inta wanaagga u saaxiibka ah, Soomaalinimada jecel, daris wanaagga jecel, in Soomaaliya mida ay soo noqoto jecel, waxaan rabnaa inay nagala soo qayb galaan maalintaas. waa maalin murugo leh oo aan ku xasuusan doono odayaasha gobolka Shabeellada Hoose ka soo jeeday ee iyagoo gudanaya waajibaadkooda oo ka shaqeynaya inay dhisaan wanaag iyo Soomaalinimo iyo sida Soomaaliya ay ku soo noqon lahayd oo dawladda iyagoo ka shaqeynaya in ummad wax magarata ah oo aan aqliga u saaxiib ahayn ay jidka u galaan, ay baabuurtii kala degaan, ay si wadarana u xasuuqaan odayaashaas. annagoo ka xun, waxaan rabnaa in maalintaas marka Soomaaliya oo dhan ay nagala soo qayb gasho oo gacmaha la isqabsado. dhibka imaan doono kan hadda waaba dhacay, laakiin kan imaan doono sidee looga hortagaa in gacmaha la isqabsadaa loo baahan yahay oo maalintaas aan isugu nimaano. magaalada Minneapolis bay ka dhacaysaa barordiiqdaas. cid walba oo Soomaaliya ay u furan tahay, cid walba waxgarad ay u furan tahay oo bulshada ka tirsan ee Soomaalinimadana jecel. waxaanu leenahay Soomaaliyay ku soo dhawaada. bismillah, inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. waxaan dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee Minnesota ee nabadda jecel ku wargelinaynaa in barordiiqdaas ay dhici doonto maalinta Axadda oo bishu ay tahay 4/6/2014 saacadu oo marka ay tahay 5:15 galabnimo. waxayna ka dhici doontaa hoolka An-Nuur Business Center oo adreeskiisu uu yahay 2532 50 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55406. aan ku celiyo adreeska waa 2532 25th Avenue South, Minneapolis, Minnesota. wixii faahfaahin ah kala xiriira telefoonka shaashada iyo magacyada ku yaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.